وكبد بعد إلهي ذا كدفاعي سبحانه وتعالى. قصة سدادات يدنا بخاري باورينيا من حديث أنس بن مالك نبي عليه الصلاة والسلام نباويمي كريستال كوها وصا إسلامي وحبرت سورة البقرة إيه آل عمران لبدا سورة القرآن كودا دير نبي قال وحبوك قرقريش أما هو قرقريش ريبا إن يركدب إن كان باكل عضو قال لماذا يسيب كل نغضب أيام كدب ودنت إلى هذا كوكسي ويأسن صاحبتي سي قال هذا دول كيبا ديدو صوتف معناه واحد tilmaamaysa inuu khalqiga ilaahay aduu dadka asxaabta ugu hiilinayaan dalka ilaahayna nabiga ugu hiilinaya kaleey salaatu wasalaam dulkiiba diiday ninka nabiga caayay ceebeeyay risaaladii iyo waxyigii wax u dhimay uu soo tufay markaa ha baydaan gaaladii maxamed iyo saaxiibadii markuu ninkani ka soo cararay ayay ka daba yimaadeenay meydkiisii soo qufeenay banaanka soo dhigan Soomaha xabaasha u dheereeyay way aaseen xabaashii bay dheereeyeen laba joog ka dhigeen way ku heleen oo way ku xidheen haddana isla habeennimadii ba dhulkii baa soo tufay subaxdii bay yimaadeen waxay yiraahdeen war wali way daba socdaan xabaashii bay haddana dheereeyeen ay saddex joog ka dhigeen way ku libdhiyeen oo way ku xidheen markii saddexaad buu dhulku soo tufay fa'alimu anna hadha laysa min al-bashar marka waxay ku qanceen arrintan arrin bani aadam inaanay ahayn fa'alquuhu ala al-ard markaasay dhulka ku tuureen ay yiraahdeen baqtigiisa aydu ha cunto maxaynu ku falaynaa dhulkiiba diidiye saynu dhaan xageenu geynaa ilaahay baa u heeliyay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam